waxaan ogahay arintii dhacday waa dhab weeye numberka dhimashadu inay aad uga yareetay 14 Oktoobar dhici jirtay ee Zobe laakiin burburka soo gaaray dhaqaale burburka soo gaaray hanti inay la mid tahay ama u dhowdahay marka runtii amiin ambulance aad iyo aad yaan runtii kaaga mahad celinayna shaqada wanaagsan aad umada u hayso oo waliba isxilqaanka ah ajir Allah ka siiyo xaqiiqatan waa musiibo waxa dhacay musiibadana waxay soo socotay muddo 12 sano wax hadda bilowday ma aha wax sanadkii la soo dhaafay bilowday ma aha waxaan la dagaalamayna waa argagixiso weeye argagixiso macnaheedu waxay tahay dad naftooda aan rabin oo la dagaalamaya kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka bini'aadamka la dagaalamaya nafta bini'aadamka la dagaalamaya dawladnimada iyo horumarka la dagaalamaya marka runtii waxa weeye waa musiibo oo kulli dawladda annagoo dhan baa wada ah oo shacabku waa dawladda qof walba uu ka qaato kaalintiisa muhiimka uu ka qaato ciidanka waa aragtaan waa dhimanayaan ama waa ka hortagayaan ama waa soo afjarayaan ciidanka kaligood waxba ma qaban karaan xaqiiqo weeye hawshan waa hawl wadareed weeye waa wax loo wada yaalla hadduu yahay siyaasi hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay maxaan ku yiraahdaa businessman nin ganacsada waxa weeye waa waxna wada haysta haddaanan laga wada shaqaynin oo amniga aanan dhexda loo xiran oo loo daayo wiilashan dhalinyarada ah waxay qaban karaan waa wax aad iyo aad u yar weeye maxaa yeelay dadkan waa dad annaga naga mid ah qoladan argagixisada ah khawaarijta waa dad annaga naga mid ah waa dad ilmaheeni weeye waa sida aad maqlayseen oo qof walba qofkiisa uma arko inuu yahay khawaarij uma arko laakiin qof kale uu arkaa marka qof walba hadduu kiisa haysto hadda macnaheedu waxaan nahay dad isku dhex nool marka dhibkuna waa na soo wada gaaraya marka waa waajib kulli ummadda Soomaaliyeed wada saaran haddaanan garab lagu siin oo gacan lagu siin ciidamada qalabka sida oo qof walba oo Soomaaliyeed uusan waajibaad ka saarin hadduu arko uu report gareeyo hadduu maqlo uu sheego macnaheedu waxay tahay maalin walbaba waxaa la leeyahay qofkaas aan soo sheegin waxaa dhimanaya qof uu yaqaano ha ahaado qaraabo ha ahaado saaxiib ha ahaado dad muslimiin oo aan waxba geysan marka haddii aan kulligeen aan saarno waajibaadkaas aan soo saarno oo aan loo qaadan hawshan dad gaar ah inay leeyihiin